السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa halkan iniga soo duubaya waraysi dhageystayaasha qiimiga qayaalow ee adduunka daafirsa jooga waxa maanta inii soo duubaysa dhaqaale nuis ayadoo waraysigana ka qaadaysa adduunka dacaladiisa gabdho reer Jabuuti oo jooga ku soo dhawaada. Okay, السلام عليكم. إمك أنت قويت ورئيسك دونك دافيسة أيام كتصدوبنا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا سعيد بري وحجوا باريس. حسب UN ومدى UN إلا كلا هلين يانا هاي. إدوك أكوكا هلوضي. وحان إل عاوق قبنا ودالك يجي. وأمضيدي وأبدكيجي intii oo dhan laga tumayo dhanna xaqoogi umad kale loo geynayo walaalahayo sida runta inta aan hadalka ku daynmayne waa inaan maanta ka dhimanaa taas wax laga dhinto weeyin waa inaan ka dhimano dhimashadii geeridu xaq maxay kolbay nolosha dhaantahay inaan ka dhimano weeyaan waxayna madab dirayska sida waxaad u sidiini waa walaalihiin waa hooyadiin waa ubadkiini kolka aad wax ku jiiraysiin dee xishooda hadeeto waa waqtigii la xishoonaya weeyaane inigama gayaan hooyada walaasha inantaadi ilmahaagi inankaadi waa waxaad leynaysiin ee meesha ku nool gaajadu ay doorisay ee ay ku nool yihiin bilaa dawo bilaa cunto bishaaro ay dhibi iskugu timiday uu baktigu xalaal yahay inaad ininkuna ugu darsantiin cadaawa la jooge ma aha nin isaysane inaad ka joojis idinwala ka joojisiin dhankiina walaalahayo taasaan niga codsanay annakuna ilaahay hadduu noo qoro kuwa hadeed sara kacay eena fadhiisanayn iyaa nahay waan hanaynay naftayada horeba waanu hanaynay maantana waan hanaynaynaa maxay ka dhigan tahay gaajo iyo haraadliyo iyo dawa ku dhinteen xaq miya in dhididkayagii ummad kale loo geeyo xaq miya inay ubadkayagu bilaa dhaktar ku go-aan oo dhaktaro kale la dhisayo taasi waxay noqon doontaa tux gali doonta istuwaarka adduunka gali doontay noqonaysaa waan ka dhididaynaa tu adaynaynay ma aha mana adaynayno ha sugina. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. garabkiina waa dhameeyey waayahay inta kale ayaa imikana hadlaysa kusoo dhawow.
oo linin soo duubayo daafa adduunka ka soo duumaya gabadha kale ee kusoo dhawow kasoo hadlaysa UK. waan dhawahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa aniga oo gabadh reer Djibouti oo hablaha oo jooga wadanka Ingiriiska. waxaan halkan ka cabaaraynaa ama aan u diraynaa fariin keligii taliya wadanka haysta maxaan idhahdaa sidoo doono dadka ka yeelaya naga dhigay aqal yar oo aqaladiisa kamid oo waliba masquul ah inay dadka reer Djibouti oo dhan ku nool yihiin. kaasaan la hadlayaa waxa weeyaan horta hadal iyo waanaba wax walba waa lagu dhameeyay dhagii Ilaahay waaniya unba waan tooba Ismaaciil Cumarow yaa anagu hadaan dibadda joognana dadkii maalinta UK saacaga dhigatay albaabka hortooda joogay baan nahay sidaana waan u wadaynaa halganka mana joojinayno meel kasta oon joogno hadaan nahay bahweynta todobada xisbi ee isku bahaysatay USN ee noo horseedayaan culimada yada sharafta leh ee qiimaha yaqaayaha leh ee ku xidhay gabood ee meel aan la quuri kareynin adgeysay taa aad baan uga murugoodaa leeyla nahaaran wallahi summa wallahi waan ka murugoodaa marka yoomul ayaan unbay insha Allah soo bixi doonaan yoomul ayaan unbay soo bixi doonaan waqtigan hadda sanad uba noo dhamaaday intii ka hadhana de kuma biirin kartid adduun weynahana ceebtaadi way arkeen gaaladii baa ku aragtay caruurtii baa xitaa kula yaabtay dadkii waaweynaaba kula yaabay waar fin naga baxay baa tahay fin jirkayga ka baxay baa tahay kumana goyn karna hadeeti waan ku goynaynaa waan iska kaa goynaynaa hadeeti waxa weeyaan programkani waa program weyn oo adduunka daafiisa laga daawan doono Facebook iyo website-ka dhagaala waxa aad doonaynaa inaad aragtidaada bal sida sheekadii baa la xidhay baa tidhi waxaa kaloo jira dad shalay la masaafuriyey dad la dilayo mudaaraadkii loo noomeyn eegin wiil gabadh yar oo aqalkeegii islaan agooni kaga tagtay oo ciidankii ku gubiyeen aqalkii oo caloosha qoryo ka galeen dhibaatadu ma yara waxaa loogu daray maalkii wadanka oo Djibouti u baahan tahay oo belbela ay wada lahayn oo biyo lahayn oo dhaqtar lahayn oo iskuul lahayn halkaas ayaa waliba maalkii lagu dhisayaa wadamo kale kol Muqdisho kol Hargeysa marka bal arrintaas sidee kula tahay arrintaas waa arrin aad iyo aad looga xumaado kolkii hore waxaan qabnay xarig iyo dad uu dilo uu sumeeyo oo dadkii markay dadkoogii doontaan ee la dhaho waa rag ha naloo baadho uu intuu la orday uu sumeeyey 4 caruura iyo gabadh yar yaa uu gabadha yarna uu dhali karayo inanku qabo inanka uu dilayna uu dhali karayo mutacallimnimadiisii iyo maskaxdiisii wanaagsaneed Ilaahay siiyey yaa uu wax bartay ayuu Ismaaciil Cumar u quuri waayay taana wuu u quuri waayay marka waa shahiid baan leenahay inankaana ma ilowno ubadkiisa iyo isagaba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naxariiso janna Allah siiyo ubadkaasina ubadkaaga ka jiri doonaan hadaad diin weydo dhibaatadan hadaad joojin weydo kuway dhali doonaan kuwaaba u jooga waxaad joojinayna maaha taas anagoo qabna ayaa haddana maanta dadka reer Djibouti waxay qabaan tacdiyaad ah inaad warqadaha dadka ka ceshatid oo xuduud ka dhigtid taasi ma xaq darra taasi tu loo joogsanayo maaha anaga waadna taabatay saad noo taabatayna anaguna waa meel aan ku taabanaynaa mana kaaga hadhayno taas anagoo haddana qabna ayaa waxaan maanta ka murugooday inanta yar ee Juweeriya khayr Allah si ilmahaygii la daataay taayar uu askarta Djibouti 7 jeer ay xidhay 7 jeer bay xidhay mar walbana waan kala soconaa Facebook-yadan kala soconaa 7 jeer bay xidhay maalintii 7aad ayaa laga yiri mise jeer baa lagu soo xidhay 7 askarigii baa naxo ka yiri iska baxorado waa ilmo yar tacliin ma haysato ya war xorriyad baan rabnaa tacliinna siiyaba ilmaha yar ku doodaa waa ilmo yar taasina intaasina taariikhda gali doontaa insha Allah rahmaan annaguna wanag joogsanahay waana is agtaagi doonaa mana ka harayno dibad hadaan joogno iyo gudaha hadaan joognaba Ismaaciilow weerar baan kugu haynaaye waa halkaad isdigtid iyaro kale waxaan u jeedinayaa askarta Djibouti adreeska sita war adreeska ma waxaad u qaadeen shicibkiina Djibouti ma shaqaad u weydano ma shicibka Djibouti adreeska u qaadeen ma inaad maatida iyo ilmaha dhibaataysan dishiin ba shicibka u qaadeen ma islaanta agoonta ee balbala meesha bulduqa la yiraahdo gashay 4 agoon haysatay ilmaheega waxay rasanaysaa saribada yar wuxuu ka guranaysay maxaad u qaadeen inaad aqaladii ka jabisiin dhibaatooyinkaas soomeeran anagu dibadaan joogna wayna taabatay laakiin tu la iskaga tagayo ma aha aakhirana wayni sugi
adduunkana waad ku naanaasi doontiin haddaad tan joojin weydiin wallahi cuqubo ilmihiina aad u guraysiini ilaahayna ka baqa ragga waxaa samaynayna anaga way noo qoran yihiin dibadaha haddaad soo caga dhigatayna sharciga adduunkan laga maray dalka haddaan inagu nimanana annaga gacanteeda inagaga shaqaynayna intaad ummadda gacanta kaa disheen waan aragnay kaad lugta goynaysiin waan arkaynaa ilmaha yar jaanka dhulka jiidaysiin waan arkaynaa war madreeska jabuuti baad u qaadateen faransiiska lacagta inagu siiyaa ilaahayna ka baqa waa ilmihiinii waa ilmaadiradiin waa walaalihiin waa habrawadaagiyadiin waa gabdhihiina gabdhaha ay dhaleen war allaha laga baqo war haddaad ilaahay ka baqi weydeen caasimada yare jabuuti culimadii wuxuu sheegaysay na habsi baad kaga riday heeso iyo fantaasina waa bilowdee war alla ka baqo naga joogsaan ku nidhi intaasay nagu filan tahay intaa ku joogto haddaad ilaahay taqaantid ayaan ku leenahay ha imikana waxaa soo galay oo qoryaan kale oo qurbaha isaguna ku nool wuxuuna waxaad ka hadashaa walaal arrimahan siday u socdaan askarta dadka laynaysa iyaguba ubad bay leeyihin aasas bay leeyihin walaalay leeyihin waxa weeyaan bal arrintaasad u aragto iyo xuquuqda meesha ka socotay cadaabata iyo dhibaatada lagu hayo shacbiga bal adiguna aragtidaada ka dhiibo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum asalaam dadka reer jabuuti adduunka daafihiisa kala jooga waxaan u bogaaninayaa salaam iyo bashbash iyo barwaaqo aniga oo ka hadlaya arrimaha dhibaatooyinka ka taagan jabuuti xaqdarrada iyo sida loola dhaqmayo ummadda reer jabuuti adduunka lama arag qof wadankiisii jooga oo warqadihiisa laga qaado oo la masaafiriyo taariikhda adduunka kama dhicin marka dawladda jabuuti sharciyada adduunka lama socoto waa maqaaxi yaroo sidii la doono laga yeelayay noqotay taas waa laga fiican yahay adduunka lama arag dad xaqoogii la luminayo dad xoolahoogii wadano kale lagu dhisayo ee dadku wadanka lahaana ay ka kaajoonayaan dhibaatooyinka caynkaas oo kale ah oo wax loo dulqaadin karayn ubad la laayo dad mudaharaadaya oo dhibaatooyin geysanayn oo xaqoogii raadinaya in budad lala dhaco waa xaqdarro waxaas oo kale anaku waxaanu leenahay dhibaatooyinka laga daayo dadka qofkii dhibaatada geystana mustaqbalka oo wax maxkamad baa lasoo taagi doonaa waa la isweydiin doonaa qofku wax sameynayo waa inuu ka fiirsado adduunku maaha maanta uun beriba isbedel baa iman maxkamadaa iman doona marka xaqa qof kasta waa inuu xaqa ku dhiiranaado dulunkana uu diido sidaas weeyaan waana ka xunahay dadkii dhibaatooyinkaas ay lasoo gudboonaadeen wadaadada la xidhayo waa xaqdaro dadka sidaa looma xidho qofku wadanku waa demoqraat baa laleeyahay qofkuna mana hadli karo ma demoqraat la hadli karin ba waa sharciyo cusub oo adduunka jirin marka waan ka xunahay dadka xornimada waa in loo dhaafo xorriyatul qowlka waa wax muhiim ah dadku xaqooga waa ina ay ku doodi karaan waa inay dadku ay sinaadaan waa ina dhibaatada dadka laga daayo horumarka laga shaqeeyo iyo sidii laisku kaashan lahaa iyo mustaqbalka wadanka sidii loo dhisi lahaa dhinac kastaba shaqo la-aanta loola dagaalami lahaa cudurka loola dagaalami lahaa jahliga loola dagaalami lahaa hawlahaasoo kale waa in lagu kaco dadkana waa in laga dhaafo dhibaatooyinka lagu hayo xoolaha wadanka meelo kale lagu dhisayna waa in laga joojiyo dadkii lahaa waa in wax loogu qabto waana ka xumahay khayr baana waayahay arrintaas maanta waxaad soo duubaysaa dagaala news waxa weeyaan dhegaystayaasheeda qiimaha qayaalow waxa weeyaan shacbiga jabuuti yaa lala hadlayaa waxaa lala hadlayaa dhalinyarta waxaa lala hadlayaa hooyooyinka odayada war waxa weeyaan xaqiina sida Ukraine shacbiga Ukraine ba u kacay xaquuqdooda gacantooda kusoo riteen waa ka madaxweyne orodka ka baxay wadankiina maanta madaxweyne kale loo dhaariyay xuquuqdiina shacbiga jabuutiyo ninna ha u daba fadhine soo rita baan leenahay